رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدن محمد حسين روبله oo safar shaqo ku jooga deegaanada Galmudug ayaa dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha caasimadda Dhuusamareeb. Dhismaha garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb oo qorshu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan oo bilowdo ayaa ahmiyad weyn waxa uu leeyahay soo kabashada dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada ee muhiimka ah shacabka Galmudug. waxaana qayb ka noqonaya horumarada ay higsanayso dawlad goboleedka Galmudug. munaasabada dhagax dhigga garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug, wasiiro, xildhibaano iyo marti sharaf kale. Ra'iisul Wasaare waa ku mahadcelinaynaa adiga iyo madaxweynaha dadaalka iyo gacanta naga siiseen dhismaha aeroboortka. annaga lafteedu shib ma ahayn Galmudug waa ka qayb galnay qayb weyn la nimid, laakiin inta badan waxaa gacan naga siiyey dowladda federaalka Soomaaliya. waa ka mahadcelinaynaa, guul weyn bay noo tahay. waxay nagu haysay runtii fikir gaar ah nagu haysay dhismaha airportka caasimadda muddadii runtii la soo maray. maantay dhismihiisu waxay noo tahay horumar iyo jaanis weyn oo la gaaray. ra'iisul wasaare soo dhawow. رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدن محمد حسين روبله oo ka hadlay dhagax dhigga garoonka diyaaradaha ayaa ugu baaqay shacabka Galmudug midnimo iyo wadajir si ay u gaaraan horumarka ay hiigsanayaan, isla markaana dadaal dheeri ah ay geliyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen dhibaatooyinka la haray deegaanada ee dib u dhigay horumarkii ay samayn lahaayeen. waxaa maanta farxad ii ah anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale waxaan mahad u soo jeedinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, senatorada, xildhibaanada iyo wasiirada federaalka oo nagala soo qayb galay munaasabadan dhagax dhigga ah ee garoonka diyaaradaha ee caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. runtii waa farxad dhammaanteen, waana qaybo ka mid ah horumarinta Galmudug oo aan ka geysanayno ka dawlad ahaan. shacabka reer Galmudugna intaa iyo ka badan ayay naga mudan yihiin. hadduu ilaahay raalli ka noqdana mashaariic kale oo badanna waa u soo wadnaa insha Allah, hadduu waqtiga ilaahay uu nasiyo insha Allah. sidaa darteed mar labaad iyo mar saddexaad waa ku mahadsantihiin. reer Galmudugna waxaan leeyahay dad badan oo reer Galmudug oo magaalada Muqdisho jooga ayaa jiro, biyo sacbadaada looga dhargaa. marka Galmudug waxaan leeyahay ganacsatada reer Galmudug ee dalku ugu taajirsan waa inay qayb ka qaataan horumarinta Galmudug. haddii kale sidaan ayay dib ugu soo noqonayaan waqtigii ahaataba. marka waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. billahi tawfiiq. dhagax dhigga garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ayaa qayb ka ah qorshe dawladda federaalka Soomaaliya ee mashaariic horumarineed uga fulinayso deegaanada Galmudug si shacabka ku nool loogu dhaweeyo dawladnimada, isla markaana ay u gaaraan adeegyada ay bixiso. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Dhuusamareeb.